si aynu markaa wax uga fahamno waxyaabaha ay suuraddu tilmaamayso ama aayaadka ku jira waxaynu xusi lahayn اتفاقيات كي افتراقات بين الجن والإنس إنك إيا تشينكه وحيابها نكمل ذا السنة وحيابها نور حياة سيدا مركا الشريعة دي إنيا دينتو أما الدليلك وأشياء ما ها سيدا دادك كلاو عبران مركا نورتا قال أنه أركتي ذا دادك كقبان تشيمانك يا عالم كهاسي بدي واحد قدب من دواء قباطفل من دواء نحلحاب تaynu inagu leena waa tadhaxee daliilku sheegay dadka qaar kood ba gaabiyo gabadfal sameeyo xidhan wax jin la yiraahdaa ma jiraba waxa aynu arkayna itaabsiida inoogu muuqdon ba jiraba kuwaas ilaahay bay beeniyeen quraankay beeniyeen qofku hadaanu ka toobad keenin de uu ku gaaloobaya intee oo aayadood ba jinka ka waramaysa marka intaaba uu beeniyay qofkaas muslim baa sheeg waxa jira qayb kale oo iyaguna xad gudbayo meel walba jinu taagan yahay oo shaydaan baa soo arkay shaydaan baa duqay shaydaan oo baalka ka qaad shaydaan marka wixii walba wuxuu leeyahay shaydaan iyo jin baa sidan yeelay marka waxaad moodaa gabigiisuba inuu jinku afarta dhinacba kaga xiran yahay hadduu ku fa jin baa lagday haddii wax ka sii noqdaa jin baa yeelay taasina waa xad gudub waxaad siisay awoodaan ay lahayn tadhaxana waxa weeyaan tanaynu sheegi doono waxyaabaha aynu ka midaysanay waxa ka mid ah inaynu nahay laba makhluuq oo awoodda ilaahay marka loo eego labaduba daciif يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وحي لهي دونو بيالي كرام marka adigu inta Itaaliyartayna waa Itaaliyari inta awood leedayna yana awood bay leeyihiin waxa aynu wadanahay mukallaf macnaha xilba ilaahay uu nasaarayo waajibaadka in nasaaran oo kale ayaa iyagana saaran rasuulada ilaahay uu noo soo diray iyagana loo soo diray iyagu rasuuladeenu ba rasuulaha wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun عبادة أبو ريباء الهوي ساد رادت وحي لين صالح يا طالح سيدي نوكله قف وناكسن يا قف حن كود حن مركود هرأس الكود واتشن وإبليس كي الشيطان كبر هير تشنوي كان من الجن بولاي إبليس كمركو ورهير هير تشنبوا مركا كود حن هذا الشيطان يا إبليس بالا يا عفريد يا وحى يا متمرد سيدي نجا كوي النحو هذا الشيطان لا ينادى القرآن كوا الشيطان وش جاي تتكحن حن abaalmarin baynu wada leen waakhiro dadka wanaagsan jiniyo insiba muuminiinta waa la jannayn kuwa xunna waa la cadaabi waxaynu ka midaysanay ihtiyaajaadka baahiyaha oo inagu cunno iyo cabid baynu u baahanay iyaguna way u baahan yihiin rasuulka sallallahu alayhi wasallam way u yimaadeeno waxay ku yiraahdeen waxaan u baahanahay inaad bal noo cayinto wixii aan cuni lahayn ma cabbi lahayn marka wuxuu yiri waxa wax ka cuni doontaan hilibka lafaha anagu aanu daadino ee bisinka neefka lagu gowracay lafiis ilaahay baan idin bariyay hilibka ga dharga digada xoolaha iyaguna waa xoolihiina raashinkooda xadiidkaas Bukhari iyo Muslim baa ku sugan yahay oo laf buu u keenayo iyo digo saxaabiga Abi Hurayra nabiga uu keenay si ugu istijoodo markaas uu iska tuuro wuxuu labadan jinkay u yahay raashin dadkoodii iyo duuyadooda iga daa laguma istijoodeen laga ciyaaro ma way isdhalaan waana iskuursadaan waana isdhalaan qabaa'ilna way leeyihiin sideenoo kale ilaahay baa wuxuu afatattakhiduunahu wa dhurriyyatahu awliyaa qolada iyo caruurtooda inka ibliis ama jin iyo caruurtiis de caruur la yiri de wisdala sida loo kale waxa ay naga duwan yihiin ama aan idhaahna waa kala duwanahay inaga iyo iyaga iyo malaa'iktu waxyaabaha iftiraaqaadka aynu ku kala duwanayn ba kow ah shanta hore waxaynu iskaga midaysanay ay weeyii waxyaabaha aynu kala duwanahay waxa kamid ah xagga muuqaalka ملائكة أو قروح بدن مخلوقة إلهي سيد القرآن كما شاقي في سورة يوسف إنسيقنا وكحقا في أحسن التقويم أي إلهي وكتل بامي سيد أقوانا يستبوا أبوري
iyaguna way naga foolxun yihiin dalcuhaa kaannahu ru'uusu shayaaطiin madaxyo shaydaan baad moodaabaa ilahay uhi geedka ahlu naarku ay cunayaan marka haddii iminka qofka la idhaahdo shaydaan sawir dee ugu horreynba wax foolxun buu sawiraya gaali iyo islaamka la idhaha shaydaan sawir iyo cayn ku eegyahay geesuu ka bilaabaya horta ila nebigu waa kii lahaa qoraxdu waktigaa waxay ka soo baxdaa shaydaanka labadiisa gees dhexdooda waxyaaba aynu ku kala duwanna waxaa ka mid a xagga abuurka malaa'igta nuur baa laga abuuray inagana dhoobaa laynaga abuuray isagana naar waxaa saddexaad aynu ku kala duwanna xagga aragtida iyagu wayna arkayaan inagu se ma arkayno innahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xaysu laa tarawna isagii colkiisu way idin arkayaan laakiin idinku ma arkaysaan baa ilaahay wuli sidaasaanay danteennu ku jirtaa inuu ilaahay naga qariyay subxaana wa tacaala qofka had iyo jeer jin aragga lagu dhahdaana waa qof xanuunsanaya ha ku xiiqi haddii lagu dhahdo jin arag weeye hebel jinkaa galay oo waa musaab xijaabkii baa meesha ka kacay qofka ay geli karaan ay derderi karaan baa iyaga arki karaa mid waalan baa wuxuu odhan jiray maxaa dadka shaydaanna fuushan ilan iyagii baa jiidho u derderan yahay maogta marka wuxuu arkayaa shaydaanada dadka fuushan qofka xun 20 baa fuushan ka wanaagsan mid baa fuushan marka waan arkayaa buu leeyahay dadkii oo la fuushan yahay waxaynu ku kala duwannahay oo afraad tashakulka iyagu xayawaankana way isu egeysiin karaan bani aadamkana way isu egeysiin karayaan oo suuratu anfaal ba ilaahay wuxuu ka warramay iyadoo uu ka cararaya dadka dhinacooda markuu gaalada soo raacay maalintii beder qisadii abeesaduna way jirtaa abeesadii ninkii asxaabiga intuu abeesada dilay markiiba dhintee uu nebiguna ku sheegay abeesadaas inay jinahay xagga awoodda way naga awood badan yihiin waxyaabo badan oo waxay soo arkayaan iyo speedka ay ku soconayaan waa kii nebiguna 3 qaybood bay u qaybsamaan qaar duula qaar xamaarta iyo qaar sida qabaa'ilka guura marka qaar sida diyaaradaha u dheeraynaya jira oo dee cifriid baa ka mid ahaa lahaa nebi sulaymaan oo falastiin jooga ayuu ku lahaa waxaan kuu soo qaadi doonaa carshiga boqoradda yaman intaanad meeshan ka kicin masaafad intee lag bay isu jiraan inana waxaynu kaga awood badannahay baa jiro aanay iyagu kari karaynin oo ay noo daba fadhiyaan ama aynu kagaba wanaagsanno aada u fara badan meelaha ay degaan waxay u badan yihiin meelaha kudaafadaha ah rasuulkuna wuxuu lahaa sala allahu calayhi wasalam ina haadihi alxushuush meelaha xashiishyada iyo kudaafadaha waxaa degan khalqigaa kale eh marka aad galaysaan ducadii akhriya allahuma inii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'ith waxyaabaha inaga duwan yihiin waxaa ka mid a cunada saa hore aan usoo sheegay cimrigana way naga duwan yihin cimriga oo dee ka ugu cimri dheeri waa shaydaan waa kii ilaahay baryee yidhi rabbi andirnii faandirnii ilaa yowmi yubcahuun ilaah uu soo saar ilaa inta idaa oo haydil ilaa inta khalqiga la soo noolaynayo ilaahayna wuxuu ka aqbalay ilaa suurta hore ilaa yowmi alwaqti almacluum marka kuwa kalena cimrigoodu waa dheer yahay waaba laga yaabaa inaanu kaa gaadhin laakiin cimrigoodu waa badan yahay caqligooduna saasuu inooga duwan yahayo marka la eego kooda waa qaangaadhee muddo jiray 10 jirkeennay la caqliyiin almuhim caalamkaasi inaha nusuusta ay ka sheegtay waa inaha kollaybana waxaynu aaminsannahay in khalqi ilaahay inuu yahayo dee sida aynu u dhaqmaynaana waa sida sharcigu inoo ogolaaday iyo waxaynu iskaga ilaalin karno wallahu aclam